bismillaahi raxmaani raxiim ku soo dhowaada jaalka maalmaha waxaan idin soo gudbinaynaa qiso la yaab leh. haweeney la aasay subaxnimadii habeenkiina laga soo bixiyay qabrigeeda ayada oo nool. waa qiso la yaab leh oo ka dhaca dalka Tunis. haweeney u dhalatay dalka Tunis ayaa waxaa ku dhacay arrin aad loola yaabay. haweeneydan ayaa waxay ku nooleed meel u jirta caasimadda dalka Tunis 238 kilomitir, waxayna ahayd ruux aan markaa wax jira qabin oo fayo. ayadoo iska joogto gurigeeda ayay mir daboolmatay. kadib baaris dheer waxa reerkeedii isku raaceen inaysan nooleen haweeneydan. markii la isku raacay inay dhimatay ayaa islaantii la meeray, waxaana lagu dukaday salaadii janaasada. kadib waxaa loo qaaday qubuuraha, halkaas ayaana lagu soo aasay. xilli galabnimaha oo saacado dheer ka soo wareegtay aasitaankii haweeneydii ayaa waxaa dhacday islaan degan halka dadka lagu aaso, isla markaana meesha ku lahayd xoolo ayaa waxay xariga ka soo furtay 2 dameer oo ay lahayd, ayadoona markaa doonaysay inay meel kale u kaxayso. 2 dameer ayaa waxay soo aadeen qubuuraha. ayagoo meesha daaqayo ayaa waxaa u timid islaantii lahayd, ayada oo doonaysa inay soo celiso ayay waxay maqashay qaylo ka dhex yeerayso qubuuraha dhexdooda. islaantii waxay dareentay cabsi, wayna ka soo carartay meeshii. wax yar kadib dameerihii ayaa haddana mar kale u cararay qubuuraha dhexdooda. islaantii oo ay ka daba baxday, markii ay gaartay qubuurihii dhexdooda ayay haddana waxay maqashay qaylo. markaan waxay muujisay geesinimo, waxayna tagtay halka ay qaylada ka yeerayso. markii ay u dhowaatay ayay waxay aragtay haweeneydii dariskeeda ahayd oo saaka la aasay oo qabrigeeda ka dhex yeeraysa qaylo. kadib waa ay soo carartay, waxayna u tagtay reerkii islaanta ay ka dhimatay, waxayna u sheegtay waxa ay la kulantay. reerkii ayaa soo baxay. kadib markii ay arkeen xaaladda ka jirta qabriga dhexdiisa ayay waxay go'aansadeen inay qodaan. kadib qabrigii ayay faageen, waxayna u tageen islaantii oo nool oo korfanteedii iska jeexday. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gambalelkan riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalo cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.